marka intaanan cashir ka bixin aan idin khulaaseeyay masalada laba kooxood niman dabagelisku u baxay iyo qoliyo baydu u go'day baa meeshan ka jira aad iskaga ilaaliya ruuxa hadduu marba ashahaato oo shahaateen uu ku dhawaaqo waa laba xaala midkood waa markaynu ka hadlayna gaalnimadiisa ka hadlayno iyo islaamnimadiisa haddaan rabno inaan faahfaahinaa saddex baynu ka dhigaynaa ruuxaadan islaamnimo iyo gaalnimo midna aadan ku ogayn hadda ka hor inuu gaal ahaana ma ogid inuu hadda ka hor muslim ahaana ma ogid laakiin adigu hadda kaaga muuqda markaad la kulanteed aragtay islaamnimo waa shahaadanaya waa tawxiidsanaya waa soomaya waa salaadaya shacaa'irta iyo calaamaatul islaam baa ka muuqda waana tawxiidsanaya gaalnimo horena kuma ogid mid u qarsoonna kuma ogid islaamnimo horood ku taqaanina ma jirto ninkaasi waa masalatu ijmaac in islaamnimo loo xukumayo walaa khilaafa fii dalika waman khaalafa faqad kafar iska ogaada hawsha ayadaa waa meeshay khawaarij ku dhumeen qolyahan takfiiriinta dhan ay ku fasahaadeen bayda ugu go'day wey masaa'il aan islaam layskuma khaldo ninka aadan islaam hore iyo gaalnimo hore midna aadan ku ogayn haddana inoo muujita islaamnimo iyo calaamaatul islaam in islaamnimo loo xukumayo waa masalatu ijmaac lam yakhtalif fi dalika ithnaani min almuslimiin khilaafka xanafiyada la soo guuriyo ee ibnu mundur uu sheegay masalo kalood fahmi weydeen bay ku saabsan tahay ilaahay baa fahanka ka sii qaaday tusaale gabanaa idin siiyo hotel ba waxaad ugu gashay adoo xisbaa wadaad iyo islaam wada jiifa ma taqaanid war maxaad ahaydeen waa xaaskaygii buuri ayadna waxay tiri waa ninkaygii maxaad leedahay waad iskaga dhaqaaqay ma qodqodaysid shahaadatu nikaxa keena idab darro wey yaa kaa maqraatayna naagtaadii tahay xaaska beenalaa tahay yaa kuu dirsa adiga hawsha adiga looma laanno horaanna maad ogay inay isqabeen inaysan isqabinna ma ogid laakiin maxay kuu sheegteen inay isqabaan asagii baa sheegtay islaantina way u sadiqday maxaad u xukumaysaa daahiran inay isqabaan waad iskaga tegi xisba meesha ma geli karto warka miyaad fahanteen waa gaalka ninka kuu yimid ama aad la kulantay islaamnimo horan aada ku ogeyn gaalnimo horan aada ku yidhi muslim baana saadina kula tukay maxaad samayn waa muslim baad leedahay saa u fahma man yujxalu xaaluhu kufran wa iimaanan saabiqan aan lagu ogayn ee islaamkuu muujista waxaad xukumaysaa bilijmaac islaamnimo ninkiidina waa gaal muslim ma aha waman ankara faqad kafar waa idin sheegay hawsha idinka hoos bixin taa ma fahanteen waayahay adoo meel fadhiya islaan iyo nin iswata kuu yimaadeen waxay dhaheen isma qabne laba ajnabi baan kala nahay inaad isku kaya meherisaan rabnaa ka warrama hadda maxaad ogaatay inaysan isqabin markaa maxaad ka dalbi shuruud weligaada u yeedh makhraatiyaal ii keena meherkii waaka alaaba shuruud baad raadin aadan u raadin jirin kuwii ayagoo wada jiifa ku yidhi waan isqabnaa ايش الفارق ابتداء الشيء iyo in lagu sheego inuu sii jiro uu kala duwan yahay kala fahmo qoliyan waxay waxaan rabnaa inaan curino bilowno guur kuwana maxay ku dhaheen waan isqabnaa waa laba kala mas'alo inta haday ku kala bixi weyday ku taala mas'alada waad fahanteen bay la tahay qaybta labaad waa maxay waa nimaad gaalnimo ku ogeyd ilaahay qeyrkii inuu caabadaad ogeyd muslimiintu la dagaalamayay allo ku kufriyay markaas waa shahaatay أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بيقولي ومعلوم الكفر سابقا أحدث الإسلام فيما بعد وكفر سابق ولا يقان الإسلام وكسو الدريي ما يفهم تورك أزقا متكاوي متك حنفي مرنكا ككيرين خراسانين الشافعيين أي بحث قليين إليهين أنفيرنو هدو يهودي هاي آمن سنين رسولكو وقول خاص كويه أما عيسوي هي تفصيل
إسلام كيس الأقبال ما حتى يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام شروط وحي قشا خلافك وحوق لا من علم كفره سابقا ثم أسلم ثم أظهر الشهادتين لبدا كلا فهمه ماشي خلافك حنفي اوغل وهل كان ماشي هو معها خلافك حنفي شافعي بخاري ماشي وخلاف ضعيفه بل احمد وحده بدعوا كتاب احمد ممكن لو يدوش ايضا الصحابه والتابعون اسكمين خلافين بالروح والبوس موجستشاتين كان الاسلام لو حكمه هذان خلاف قدام باعتبارنا اسحاق راوي صحيح كبا اعتباريه مساله خلافيه هي مده مجمعه يسكاك درمني ودادو ميانا كو كلا ساري ورقميات فانتين ما هي صاري تي صدحات وروح اسلامي ما اتكو قال لي ما موجست كورما اسلامي ما اتكو قال لي ما موجست هدانا اسلامي ما موجست اسلام بوها قال لي ما موجستي هدانا اسلام ما موجستي وطوبة زنديق مثلا لو يقان كان مسلما ثم طلع على كفره ثم اظهر التوبة والرجوع عن الزندقة تنوى خلافيه مسألة ومسألة خلاف لما مسألة خلاف كتشره ايوه هي مسألة مجمعة مد أفراد ودين الإسلام كان شغل كلها ينباجرتا وإلي ما دين من كان وأقانه جفادة نين إسلام ما موجسن جرو قال لما موجستي با إسلام لو حكم الدين إسلام معها واحد مسلمين كان بدو قبانا متشرو وذلك كان مسلمين كانوا وأقانا الله سعود إسلام بالغوغا قال لما كفر أكبر سميي وفلكي با كسوغن كفرغا اها او وحو سمي وا كفر اكبر لهدهي هدانا كوفي اسلام با لوو عمعمينيا wax sii jirtay maaha ضائفه مسلمين كميد وقبتنا للجهميه والجاحظيه احد قبا ما جiro اهل القبله waxay ku ijmaaceen ninkii islaam sheeganaya gaalnimo muujista waxa loo xukumayaa fi dunya inuu kaafir yahay خلافك وحو كجرى عندها البدع حكمك أخروية لكن أدونك إن قال لمن الله حكمي والسكو وافق سياي كتب المقالات آخرية اسكداي وحيامان معاصرين قرين هذا قرآن نقول له قويين إن كوبا بانيا كل قوينا كتب المقالات آخرية كتب الطوائف آخرية لم سهلي حتى ثمامة الأشرس الكافر اللعين عند أهل العلم وتلميذه الجاحظ ما قبان نيك قال لي ما موجست الا حكم ادونك اسلامي ما قبان وحيليهين هدو جاهلي هينا ومعذور عند الله في الاخره هدو معاند هانا وكافر معذب محجوج لكن ادونك وحا الله حكم يا بيدين الكفر كذلك الجهم بن صفوان ابو الحسن الاشعري باكسو غوري جاحظ يا ثمامه يا جهم بادامه قليها مانت السلفيه شيكت ادونك دوبان اسكا الاليه marka la marayo nin gaalnimo muujistay koofisna lagu camcay marka la marayo kuwaas dhaama qayba kamida wanaag doon bay ka ilaakin waxay ku khaldameen kufriga tasriixa ay cadaayo kufriga laazimkii maalka ba iskaga khaldamay hadad kala fahmi weydana dib badan baad la kulmaysaa irahaas waa inahan rabeenad fahantaan qaacida ayada سيدنا عثمان وسيدنا عمر وخلاصين يا أن أخري مركا أيضا أنت إنك كلفانتان مهم جدا.